taageerayaasha Olympique de Marseille ayaa bilaabay olole ay kaga soo horjeedaan la soo wareegidda ciyaaryahanka reer England Mason Greenwood iyadoo kooxda Faransiiska ku dhowdahay saxiixa weeraryahanka Manchester oo lagu eedeeyay gol lahaanshaha arrimaha shaxumaha. kooxda Faransiiska Marseille ayaa wadahadalo kula jirta Manchester United si ay u iibsato Greenwood ka oo xilciyaareedkii hore amaah uga biiray Getafe 27 milyan euro. Marseille ayaa ku garaacday saxiixa xiddiga kooxaha Lazio, Atletico de Madrid iyo Valencia. 22 jirkan weerarka ciyaaraha ayaa laga yaabaa inuu ka sii jeedo dhankaasi Faransa kadib markii xilciyaareedkii hore amaah uga ciyaaray Getafe Spain markaa uu ka qayb qaatay 33 kulan isagoo dhaliyay 8 gool. taageerayaasha Marseille ayaa bilaabay ololaha halku-dhig ee uga dhigeen Greenwood halkan lagagama baahno barta Twitterka iyagoo ku adkeysanaya in laacibkan akhlaaqda daran uu naadiga u geysan doono dhaawac aan laga soo kaban karin. Greenwood ayaa United shaqada ka joojisay 2022 January kadib markii eedeemo isaga ka dhan ah lagu faafiyay baraha bulshada ayaa lagu eedeeyay isku day kufsi bishii October la soo dhaafay. xiddigan ayaa la qorsheeyay inuu maxkamadda ka soo muuqdo 27 November balse dhammaan eedeymihii iyo dambiyada lagu soo eedeeyay ayaa laga bariyeelay February aan ka soo gudubnay. kooxda Marseille xilliganna muran ayaa ka keenaysa taageerayaashooda in laacibkaasi waqtigan la keeno kooxda Marseille ee ka ciyaarta horyaalka dalka Faransiiska iyagoo diidan in xilligan oo xiddigaasi xirto maaliyadda kooxda Faransiiska ah. waxay leeyihiin ma doonayno waqtigan xiddig sharaftiisa iyo wax walbana ku ciyaaray.